وعن وناكسن دمانتي بداوضة يالكسو دوادا برنامج قارة oo aynu ugu magac darnay kaalinta culimada iyo wacyiga bulshada. barnaamijkan ayaa waxaa marti inoogu ah aadan khadar cali oo loo yaqaano aadan sahan. ugu horeyn kusoo dhawow aadan barnaamijkan iyo tv-ga caalamiga ah ee MMTV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba. waxaan la yara kaftan caawi reer Hargeysa markii koowaad madal reer Hargeysa isugu nimaadnay. berigii ugu horreysay Facebook la sameeyay ma sameysana la sameeyay aan bartay sida looga hadlo ayna la haasaabo reer Hargeysa. dadana inta hadalka la go'aanay soo qortay waxay ugu dambeysay ereyga huuno. ereyga wuxuu noqday erey qariib ah oo cusub. warga wadmi ku caayday waan xanaaqay iska qarfa dhug reer miyo wala waan haayo intii waan caay. dadana mid baan ku warnay gabadh waxay ugu jiray waan caayo masuuliyadda block Samsung block waxay masuul waxaan oo shaqo ku siiyay. إلى الآن يرجع هو نص من كقبة. هذا لك في سوى مركز إنتنا ورهلي قلنا يعطيه قرن يسويه يعني. وش من يقدر عمود دونته. إذا كنا مركز نقوليه هيك حاجة هو تكلم معنية برعية مالها. يرجع هو نحن لقيه عليه. السلام عليكم. وايه آدم وحنعوى أنو برتيقنا هاي برنامج كالينتا علماء يوعي قبل شدة. طبعا انتينا برنامج كجلين كفتن ير. هذه قبل هذا. aadan waa kuma aadan waa nin reer burca oo magaalada burco ka soo jeeda. aadan waxbarashadiisu waa jaamacadda najaax. wuxuu ka baxay kuliyadda afafka iyo baahinta. aadan waxa weeyaan wacyigeliye bulsheed oo wuxuu wacyigeliyaa bulshadiisa gaar ahaan dhalinyarada. channelka la yidhaahdo sahanka xogaha waa mulkiilihiisi weeyaan. aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan barnaamij ka qabana caawa. waa tahay aan bal kaftankayga u imaadee aadanow gobolkii aad ka timiday ee togdheer ee burco magaalada madaxiisii burco. burco waxaa la yidhahdaa waa magaalo kaftanka ku caana. waa magaalo sidoo kale igama aha maad aragtay dhaleecayn laakiin waa magaalo dacaayadana ku caana oo qudhaaduba dacaawo adiga Hargeysa dacaayadeeye howna ku dacaayadeeye. marka aadanu marka la leeyahay waxaa reer burca waxay yidhahdaan horta maxaa ka jira niyahow waxyaabaha laga soo tabiyay leeyahay reer burca yidhaahda in badan oo daciif ah ku jirta saxiixna waa ku badan yahay. marka waxyaabo fara badan hortiyaan loo qabanin qaar saxiixna way jiraan in saxiix way jirtaa. magaalada leedahay Hargeysa magaalada ugu dacaayada badan nahay marka reer burca nahay cidda jecel lahay baan dacaayadeyna ayna. marka dad artan anagu badanka Hargeysa saarno maagayno dacaayadeynayna waa jacayl iyo maxabo تحياتي يانسي كلا لو أرك. waxa kale oo jirta aadan imika qof reer Hargeysa amba magaalo kale ka yibday ayaa maqaaxibu fadhiisanaya. maqaaxida markuu fadhiisto ee la arkan ninkani inuu nin cusub yahay amba qofkani inuu qof cusub yahay ayaa waxa la isku oranayaa inakii maqaaxida istaa lagu oranayaa waar kalaadhida goormad maqaaxida keentay. dadka qofkani isma fahmayo isagu kalaadhidan iyo waxan ma fahmayo amba kildhigan isla war u bahayo isaga lagu dul maaragtay la dacaydaya isaga lagu dul hadlaya. tukaan oo kale tukaan soo galaya xaafada inay tukaanka haystay baa lagu oranayaa waariyaha roodhida gaabo goormad meesha keentay haduu gaaban yahay haduu dheer yahay waxa la oranayaa wada kale roodhidan dheer goormad meesha keentay waxa maxaa ka jira waa kuwa daciifkan idin sheegayna laga soo tabiyo weeyaan. waa arrimahan anagu xaggayga markaan joogno ma akhriyeen baan u naqaanaa xagga ay ceergaab iyo barigaashe ayaan nahnaa kuwaas waxa sameeyay munaafiqiinta ma naqaanee qofkan maagna si waxan baan u maagna waa kuwa daciifka kuwaas ma jiraan waa daciif kuwaas. waa tahay aadan waan kaaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalka barnaamijkaaga. haddaynu si toosa barnaamijkeena u galno sidee baad aadanow u aragtaa kaalinta culimada iyo wacyiga bulshada in yar waxoogaa faahfaahin. niyow mustafow علماء مركز لقى هذا اليوم توقف كستوى حيقان أو حقون هو ومدة وحكسه كردية وعالم عالم كي بكل درجة دوانو نك ميجا شو قصة كورت الله قرأ كبر يانا وعالم كورها عالم كوا نك مجرد شو قا بيولوجي فيزيكس كي كيمستري كبر يانا وعالم كوا عالم كوا عندنا إرجع علماء وكبل شهان وحنا دائما قارو يلا علماء الدين برنامج كنا نعوي يجو كوكوبية culimadeenu waa indhaheen si guud ahaaneed
waana cidda ina hagtee waxay noo sheegtay aynu nolosheena diintu waxa la yihahdaa waa wax kale maaha waa sidii loo noolaan lahaa diintu wax kale inooma bartee sidaynu u noolaan lahayn bayna bartaan kii diinta iyo say u noolaan lahayn ina bari lahana waa wadaadkii ama caalamkii wax badan culimadu way nagala soo galgasheen waxaa jira xilli hanka ugu weynay qofka hargeysa ama burco ama dhulka Soomaaliyeed ku nool uu ahaa warsul bari ma noolaanaysa in la noolaado runta marka laga hadlayo ciddii hubka inaga dhigtay ciddii damiirkeena dib soo celisay ciddii dib diinta inoo bartay ciddii halkan ina soo gaarsiisay waa iyaga markaan la isxaqiraynin hase ahaatee waaqic uu isbedelaya maalinba waxbaa la doonaya dadka in lagala hadlo aan halkaa Mustafa in yaroo kaftana geliyay sanadkii hore aan tegay yatana niman aanu ilmaadeernahay oo iska qayirayo oo dee qaacina aanoo la fadhiya ayaan adduun iyo horumar iyo bada kale ka sheekeeyay hadalkayga waxaa soo dhex galay maanta in wax la yiraahdo transgender uu jiro inta nin kala qara laga dhigo gabadhanani deetana nin ilmaadeernahay oo iska reer miyiga kuri kaysa leedahay kaysow ninkaaga garhka iyaga fuurka leh baa inan shabada qurux badan laga dhigaya nimankii soo hoostiigayga iyo markoo wareer kira kulmi diinta ka bax hadhow baan markaa ma fahmin ilaa markaa cabar markii la waday buu midiyay maxaad ula yaabaysaa inankan meesha wax lagu baro TV baa la yiraahdaa buu habeen maan san u daawanayay uu nisaan rag ugu leenayay qacdayo qubta ugu hayay buu booday oo caagad baafka galay ninkii markaa saan arkaan uguna khaldan mise kula warwa kaftamay waxaas sheekan anigu sameeyay bay ahayd marka waxa lagu socdaa waaqic marba meel buu maraya xataa hargeysa burcaan isku waaqic ahayn culimadeena markaa waaqic bay naga soo saareen aad u qaraad waaqicna wayna keeneen barnaamijkan insha Allah waxaan filayaa inta wixii ka dambeeya waaqicna ayna keeneen iyo imka halka isla marayo wixii ka dambeeyay insha Allah ku waa tahay aadan aad baad mahadsantahay aadan buu maadaama aad tahay nin dhalinyaro ah oo wacyigeliye ah sidee baad u aragtaa wacyigelinta diimeed iyo bulshada maanta sidee iskula jaan qaadi karayaan adiga aragtidaada sidoo kale aadan aqoonta diiniga iyo tamaadiga ee la kala saarayo adigu sidee baad u aragtaa sidoo kale waxaan kugu darayaa oo iyadana raacsan doontaa intii wax akhriday bulshada ee dhalinyaro u badan waxaad moodaa in ay laba u qaybsameen in culimadii ka firdhatay aragtidoodii wacyigoodii iyo maxayade muxaadaraadkoogiiba iyo in kale oo la safatay adigu sideed u aragtaa niyahow marka wax dhacaan dhacdadaas si loo xaliyo ama xal loogu helo waxa la eega asalkeedu waxan muxuu ahaa maxaa keenay si guud haddii lagu soo dhawaado su-aasha koobaad ee ah wacyiga maanta bulshada iyo wacyigelinta diimeed say isula jaan qaadayaan culimadeennii hore ee soo dadaashay way ku mahadsan yihiin culimadeena dambe dadaalkii wadana way ku mahadsan yihiin laakiin in badan oo ka mida fikradan ka haysto anigu iyo intii ila fikirka ayna dhici kartaa inaan ku khaldanahay waaqacan maanta la joogo iyo wacyiga aynu maanta ka bulsho ahaan marayno iyo wacyigelinta qaabkii u wadaan wax isla ma aha haddaan qodobka koobaad ku soo dhawaado inna waxaan nahay bulsho la yiraahdo Soomaali magac Soomaali la yiraahdo af Soomaali la yiraahdo jiritaan Soomaali la yiraahdo sharaxaada diinta ama soo gudbinta diinta ama qaabka maanta culimadeenu ay wacyigeena isugu dideen u dhisto inoo wacyigelisaa waa qaab ruuxdii Soomaalinimo ka maran waa qaab carabiyeysan oo carabaynu waa fidhannahay erga markaan la eega maaha carab nacayb carabtu waa mujtamac gaar oo meel degan innagana Soomaali baa leena yiraahdaa maalin dhaweed baan ku lahaa nin aan asxaab nahay ninkii ma garanaye war markaynu masaajidka galle ee salaada la qiimo haddii laynagu dhahdo warsasimo garbaha iyo gomadaha isa saara iyo haddii laynagu dhahdo xaadu bayna almanaakibi walaqdaam kiibeynu si wacan wada fahmanaa si wacan wada fulinayna mas-uuliyadda maxaa hadda xaggaa laynagala doonaa suugaan ahaan tix ahaan tiraab ahaan dhaqan ahaan sheeka ahaan si kasta oo ay ahayd Soomaalidu xataa tusaalayaashu waa tusaalayaal carbeed sheekhiga Soomaaliga maanta jooga intooda ugu badan weeyaan intooda badan dhammaantood ma wada aha markuu ii sharaxayo diinta ama axaadiista nabiga ama aayadaha qaar wuxuu keenayaa tusaale gabayo ah wuxuu keenayaa gabayo qabiilkii ka hadlaya qabiiladii ka hadlaya carbeed oo la isku maagayo wuxuu keenayaa biidad gabayo ah oo de marka loo eego khaliica rabbana khalaqta aljamaala faqulta taqu fa kayfa nara aljamaala walam nacshaqu masaajidada laynooga akhriya ma diidanin oo waxaa laynagu fahansiinaya waaba tusaale oo damaha diin laynoo dhigaya laakiin haddana halkaa hee Soomaaliya saadu ku bedel ilaahay u naxariisaan ku sooran lahaa sijeedkaagan xasuustaa haddii loo taas kale tusaale uga keena faxshiga masaajidka laga daaya la odhanaya يعني تسالياش الصوماليات باك مرن تحديث باك مرن waxa laga yaabaa erey waxa xadiis kan ugu faansiyo abaan carbeed ama shaacir carbeed laakiin abaan Soomaaliyeed ugu faansiin maayo dhinaca kale war ummadu afkay fahmayso iyo qaabkay u fahmaysa loola hadla
maanta hargeysa aynu joogno afkaynu kula hadlayna iyo haw afkaynu kula hadlayna way kala duwanaanayaan marka walaalkayow culimadeenni ilaahay hadaaye waxay in badan u janjeersadeen carabnimo heray dhaqankii carbeed fahankii carbeed dariiskii carbeed si kasta carab ugu janjeeraan taasi waxay keentay in qof kasta oo soomaalinimadu aynu qiimo la yara samaysaa uu wadaadkii meel kale ka eego shiikhuu meel kale ka eego mushkiladaasi way jirtaa mushkiladan labaad ee jirta ee aqoontan diiniga iyo maadiga loo kala saaray markaynu taarikhda yar dib ugu noqono sagaashamaadkii iyo burburkii xilligaa waa loo baahnaa aqoonta diini iyo maadi in loo kala saaray sababtu tahay waddanku wuxuu ka soo baxay marxalad shuuciya oo qodobkiisa asaasiga uu yahay laa ilaaha walxayaat maadda shuucigu saasuu ahaa inkastoo inagaan saa laynoogu sheeginoo dadku aanay aqbalaynin marxalad dadka ay maadiyiin noqdeen barx tiran waxay sameeyeen culimadeenni xilligaa joogay wax waaqicii la joogay la jaanqaadayo ah inay dhiseen meel diintii u khaasoo lagu barto waa tin dee markay culimadu ka sheekanayeen dadku yidhahdaan nin cirana mayna ninkii masaajid muu geli jirin jiil bay soo saareen diintooda yaqaana waxa la soo gaadhay heer ay soo gaadheen jiilkii diinta iyo jiilkii maadu oo noloshii markaa u baahan in la isla fargeliyo oo loo baahan yahay inaan xaggana biology iyo physics ka jawaabaya xaggana xadiiskii iyo tafsiirkii ka jawaabaya sidii caalamul islaam uu ahaa taariikhda markaynu dib u eegno nin qura baa lagu odhanaya mar qura wuxuu isku ahaa filosof wuxuu ahaa dhakhtar wuxuu yahay xisaabiyahan wuxuu ahaa kimisariyahan wuxuu ahaa caalim naxwe ama sarfiga ku takhasusay bartii markii la soo gaadhay laysuu yimi halka ahayd haddaba laysla jaan qaadsiiyo aqoontii diintan aynu wadno tii dunyawigahana aynu wadno isdhaaf baa dhacay wadaadkina xilligaas uu ku mahadsanaa laakiin wadaadkina maanta jooga weli markas yaroo halkaas intuu dhistay buu sarfiya naxwiya xadiis qura ku baraya ardaygiisi halkaa kalena wuxuu yihi wax gaala keentay iyo waxay iskuuliya manhajiya waxbaa laga sheekeynayaayo arday kale ayaa wax lagu baraa markii la soo gaadhay dadna waa la isdhaaf inankan khamiiska sitaa inteenan ninkan dhexda ka xidhan iyo inteenan waxa laga yaabaa inuu bidca yarar u arkiyo dad ummadda halis ku ah inankan kale ee iskuulka wax lagu soo barayna wuxuu arkaa dadka yarar khamiisaantii sita khamiiskaagna sheegi maayo iyagan sheegaya kuwooda fartada kusoo fiiqday dadka yarar khamiisaantii sita meelahan ka sheekeynaya naxwiya sarfi iyo balaaqa sidana inay yihiin dad dib u dhac ah oo dawanaga aragnay takhalluf iyo inta wax laga sheekeynayo labadii jiil baa isdhaafay marka walaalkay waxa la yiraahdaa calmaaniyadda ee maanta aad muddo Soomaalidu inay hidaadka ka fuushay aragtaan waxa la yiraahdaa waa in diinta iyo nolosha la kala saaro diinta iyo nolosha in la kala saaro yararkiinan meelaha ka buuqbuuqiyo dadka meelaha ka sheegshiga fikriyin bay u gudbiyeen laakiin culimadeenu ilaahay daayintooda ugu badan ee maanta gacanta ku haysa ummadda iyo waxbarashadeedu way dhaqan galiyaan oo way tadbiiqiyaan waxay sameeyeen wax la yiraahdaa diini masaajidka waa masaajida ilaahay fala tad'u ma allahi ahada masaajidka diinta laga sheegaya wixii dadka laga wacyi geliyo masaajidka noloshii kale shaqo kuma laha ardayga doonaya inuu diinta barta diinta oo qura barto noloshii kale shaqo kuma laha xataa haddii aanay qofkii ku odhanin ha baranin waxa kale nafsiyan buu uga dareemaya marka intaa waxaan in looga sheekan waayo marka waxaan aaminsanahay wacyigelintu culimadu qaabkii u wadeen badigooda ma wada aha dhammaantood atacmiim yuduru mutakalim qaacida leeyahay jirto leeyahay dadka haddii la isku wada qaado waa khalad badigoodu siday u wadaan iyo waaqicii ummaddu inuu isdhaafay marka koobaad mar labaadkiina noloshii maaha cilmigii iyo qoriyo waxbarashadii noloshii dhan culimadii ay diin iyo maadi u kala saareen mushkiladaas waxay keentay markaa ardaygii raaya wax soo bare markuu caalamkii oo tiraani 20 jiray adduunka la gidamaya markuu waaqiciisa u yimaado isagoo sarfi iyo naxwo laqay oo waxaan ku sidaa babka intaas soo gabayo carabi iyo adab xifdisan ee noloshii rasmiga ahayd uu yimaado ee wasalada adduunka dacal ka gal lagu yiraahdo maxaa taqaana lagu yiraahdo ma yasayno watiinteeni sarfiga naxwo waxaan diinteena ku baraynay laakiin waaqicina waxa loo baahan yahay qofkan kaga shaqaysan lahaa ardayga markii la barayay sarfiga iyo naxwahan iyo inta qura lagu koobayay qalinkiisa warshad baa sameysay sarfiga naxwo lagu sameeyay culuum tabiici iyo culuum xayaa lagu sameeyay warqadiisa warshad baa sameysay dharku sita warshad baa sameysay miisku ku fadhiyo warshad baa sameysay moodku sita warshad baa sameysay lama oran war taadana noloshaada ku hag taadana noloshaada ku hag iyadoo waliba ay noognayn in Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo diinteena markay cilmiga ka hadlayaan cilmi naafic ah inagu yiri oo laynagu edhisinka dad barto waa cilmi naafic oo ummadda wax ku tarayso wax kasta barto waa cilmi naafic afkaaga iyo aakhirada loo talinaya waxa ku soo koobiya marka qofkii yar markuu halkan yimi wax lagu maxaa taqaan computer ma yaqaan ingiriis ma yaqaan noloshii maanta wixii ka shaqeynay aad buu ugu liitan afar bay u qaybsameen in malcaamad furatay sakad ka soo aanu ka laaban imika malcaamad baa ka furan malcaamadda ana bugti iyo digta ka baxay si ciyalka wax la dhacayo oo galan karsan oo la idinka sheekeen malcaamad baa jirta xaafadteeda u dhow maalin buu macallin si xun ilmo yar u dilay gabadh baa ku siri waar walaal ilmaha yar sidee la u dilayso كده وحوك فاهم ما يحد عذر أنا بس كوبا وإحنا لقوا صوابع الغبوا النوع إيوه مركز كده بشقاء وجه لا يو صرف جيا نحويه وحيابها يرلودي بي لا بس الحمد لله بس كوتا محودي
labadii kale soo hadhay waxay noqdeen qof fakiray oo isdaba qabtay way soo hareedhe bal intii diinta alxamdulilah wad sidataay waqti kale ayaanu kaa sii lumin xaggii culumu dabiicana u yara beedho bare fadagalo meelaha eryaday waatay aadan iyo qodobka u dambeeya in xanaaqday in uu aragtay wadaadkan inuu noloshii ka lumiyey in ciil iyo cuqdad qaatay dabeetana darafka kale intiisu soo taageen wadaadkii iyo wuxuu waday iyo giddigoodba isku wada qaaday maanta dhallinyaradana meelahan ka wada buuqayntooda ugu badan haddaad backgroundkooda dib u eegto waxaad arkaysaa inay ahaayeen dhallinyaradii maraakisteena ka soo baxay ee diinta soo bartay walaalkayga markaa dhallinyaradii halkaa istaagtay ee fogaatay waa tilay rag ciil cadaab ka dooray ninku markuu ciishoodo cadaabna hala geeyeen wax baa lagu jeceliyay ciilkii baa cadaab ka doortay way ogay wax waliba xaqiiq ah laakiin ciilkii baa la fogaaday taasaa waxay sababtay inay bal isku dayaan inay isdaba qabtaan meelaha wax ka yara akhristaan markiiba waxay isku qaadeen falsafadii raggii waaweynaaye wax hawlo waaweyn tiina waxay dhashay qodobkan iminka waan usoo gudbiyey su-aashaada saddexaad oo ah in intii wax akhriday ay in badan oo kamid a culimadii isku soo taagto wadaadkii waa kii wax soo baray waa kii halkan soo gaarsiiyey laakiin isagu muxuu u arkaa inuu waqtigiisa iyo noloshiisa ka lumiyey waa kaas ku soo taagay kii kalena waa kan soo difaacay mushkiladdu markaa halkaasay ka taagan tahay waxaan qodobkaa kaga baxayaa waxay taasi keentay ixtiraamkii culimadu inuu lumo ixtiraamkii culimadu inuu lumo oo mar xaggaasuu ka lumay dadkii dhallinyaradii ku kacday marna waxaa la arkay wadaadkii suran wadaadkii caayaya wadaadkiile waa sax iyo waa khalad wadaadkiile yaanu labadeedan indhood iminka tani haddii igu tiraahdo midabka aniga ku yaalla waa madow tanina igu tiraahdo waa caddaan waxa tuhum iyo shaki iga gelaya waxaan arkayo limaada labadii waxaan ku eegayay baa iskhilaafsan marka midna igu yidhahdo diintii waxaas waa sidaa midna igu yidhahdo maya waa sidaa te iyaga way dhaafaysaa wixii maxay gelaysaa waxay leeyihiin diinta waa maxay isdiidooyinka lasma waafajin karo way adagtahay badanka marka walaalkii waxa lumay ixtiraamkii culimadana waxa lumay ixtiraamkii diinta qodobka waxaan kaga baxayaa ninka la yiraahdo adham sharqaawi buugu leeyahay lahaa nabt ayuu wuxuu odhanayaa tusaale u bixinaya tusaalaha halkeena ma waafajinaya dhakhaatiirta hargeysa maanta caanka taqaanaan dhowr ka mid ah hadday khaladaad caafimaad galaan waynu ku ogaano ma dhowrkaa dhakhtar baynu xidhaynaa nin ay khaladaadkaa galay mise goobaha iyo cisbitaalada iyo goobaha caafimaad hargeysa yaa loo dhan labada isugu dhufaan maadaama ay khaladaad sameeyeen way kala duwanti soo maaha dhallinyaradeenaas ilaahay hadaayo wax la fogaaday inay dhaafaan ciddii ay tuhmeen oo ay ilaa iyo diintii u gudbaan mushkiladdu markaa walaalkaas ay ka taagan tahay waxaan intaa kaga baxayaa war culimadeenni qodobkan ma daraasinayaan oo badankoodii ma fahansana mana doonayaan inay fahmaan haddii fahmaan xataa diyaar uma wax ka qabsan kariya dhallinyaradii waa la waalaya gaala inuu qulbaysiiyo farabaas baa inuu la jiraa inta inuu ku ekaadaan mooyaane arrimahan inay daraasiyeen diyaar uma waa taayeen aadan aad baad mahadsan tahay aadan waynu u soo noqon doonaa saddexdaa qodob ama saddexdaa weydiimood aad maxayda ka hadashay falaaqayntooda dabcan waxaa iyaguna qayb ka ahaan doona dhallinyarta inagula sugan amba dadweynahan inagula sugan tv-ga xaruntiisa adana wuxuunbaa doonayaa inaan ku weydiiyo culimada waxaad aad ugu dhaliishay amba aad tiri maxay ahayde qodobkaaga u dambeeyey culimadu ma doonayaan waaqacan inay fahmaan ereyga culimanu isticmaalnay haddaba waxaa jirta aadabow wadaad ereyga wadaad oo had moodo marka haddii la isticmaalo inuu quursi noqonayo adiga sidee bay kula tahay isticmaalka ereyga wadaad yahow waxna waa wax xaqiiqo ah waxna waa wax sida loo arkayo anumka youtuber baan inaad igu tahdo youtuber adigu ama quursi u haysaa wax kale oo hayso anu waxbaan ka hamisano waxaan ku shaqaysto title-kayga oo aan ku hawlanahay baan wariyeen ku dhahdaa quursi maaha wariyeen ku dhahdaa quursi maaha laakiin dad adigu wartay waa meesheeda wadaad waa mid kamid ah waxyaabaha inuu ixtiraamka iyo karaamada u hayo birmageydada inoogu jiray lama taabtaanka ciddii u aragtay iyo sitaan iyagu dib ay isugu noqdaan aniga waa magac mar walba karaama ilaali aad baad u mahadsan tahay sidoo kale aadan hadalkaaga naqdin baa ku jirta inaad culimadii naqdinayso innaga haddaba dhankeenna in culimo la naqdiyo amba wax laga sheego oo aragtidooda la naqdiyo waxaynu isla gaaf wareegnaa culimadu waa lama taabtaan hilibka culimadu waa sumaysan yahay soomaad garan bal sidee baad ugu dhiiratay in aad culimadaasi naqdin ku samayso iyo walaalkayow naqdinta waxa la yiraahdo iyo falanqaynta iyo gurfaynta waxba muxmaysa wax hagaajisa mooyaan markaan anigu wax aan aaminsanahay ama aad adigu wax wado yaan ku leeyahay hebel miiskana soo wada fadhiisayna wada hadal waan heshiinadii aan wada hadal waan heshiin aan ku miiskana soo wada fadhiisay aad ka maraatay samaad ka wareegto waa saddex mid waxaan nadan aqoon u lahayn
iyo waxaan aad aaminsan tahay maad wada asal ahaan baynu khaldan yahay iyo inaad adigu wixii si khaldan uga faa'iidaysanayso aqoon uma laha odhan mayno culimadeena diintiyo de waaba culim magateetarka ma maynaan siinin diinteeni wax khaldan odhan mayno iyada waan hadal male waxaan leenahay culimadii warniyahow waxaanu u malaynaynaa wixii inaad si khaldan u wadaane bal maad riyaal miiskiina soo wada fadhiisiyo aynu ka doodno dee haddaanu khaldan nahay inaan yidhahda wada khaldantiin oo isbaraxa haddii kalena dee gar qaata waxaan qodobka u cuskanaya cumar ibn khadaab miyaa laydinka sheekeynaya wuxuu ahaayo laydinka sheekeyn maayo maalin buu damcay inuu masalada meherka galo oo isku daya meherka inuu xadido gabadh baad laga kacdo waxay tiri cumarow tan aad her ilaahay baa xadidi waayey inay kala werwareeji kumuu ahaa cumar muu ahayn wadaad miskiin oo meelaha laga soo qabtay boqorkii caalamulislaami buu ahaa wuxuu yihi waar dee gabadhuna waa iga saxsantay aniguna waan kif dhacdo kalaa dhacday oo cumar lagu tuhmay inuu sadbursi sameeyey asxaabta wanaag kamid baa ku yiri cumarow ku adeeci mayno ilaa aad noo sheegto maradan dheeraadka dadka dhan mar aad u qaybisay meeshaas ka keentay cumar ibn khadaab qisada haddii dhinac kale iska taagno waxa lagu tuhmay cumar hantidii ummadda dunsatay sadbursi baad samaysay baad samaysay wax saayida baad qaadatay waliba mise waxa loogu hanjabay haddii ay taasi ku cadaato falcelinta ka imanaysa ah inaan lana adeecayn lana maqlaynin lana dhegeysanay maxaa looga bilaabay cumar kuna maqli mayno kuna adeeci mayno ilaa ayaad noo cadaysay maradan meeshaad ka keentay cumar ma wuxuu yidhi madaxan ka jaray muus barxo inankiisiba yidhi inankiisiba war anaa abahay uu dheeraayo maradaydii ugu daray markaasaa maxaa lagu yidhi haddaan ku maqlaynaa ku adeecaynaa anigu waxaan leeyahay war culimada war naqdintu cay iyo aflagaada ma jirto qofka binaadmiga shakhsiyadiisa iyo karaamadiisa cidina ku xadgudbi mayso laakiin culimo waxa jira wax inaga dhexeeyo ah diinteena iyo qaabkii noo gudbinayno aniga iyo intiila fikirka iyo dhalinyarada badankoodii maanta way idin tuhunsan yihiin bal halkan intaad culimo nala soo fadhiisataan warada yarama waad naga khaldantihiin dhahade oo isbarax deetna aniguna samcan wadaacan baan oranay sidaan weligin ba idin odhan jirnay ama intaanu idinka gar hello warde anaguna waanu gafnay idinkuna waad asiibteen wax baanu bedelaynaa nadhaha intaas micid bay dhib ku haysaa intaas ma anigu doonaya intii fikirkeena ay doonaysaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay qodobka kale aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan waxaynu u noqonaynaa dhalintii wax akhriday horta bal inta aanan dhalinta wax akhridin aanan taabanin akhriska maadaama aad tahay nin dhalinyaro ah sidoo kalena aad turjumaan weliba ah oo dee maxay yadayaan aqoontaada turjumaan baa ku dheer buug badan ood leedahayna waa maxay yadayaan soo baxeen qaar kalena way maqan yihiin sida dee nagu maqaala aadan akhriska maxaad adu odhan lahayd waayo dhalintii waa tanoo markay wax akhrido wuxuunbaa laleeyahu buug buu yaro akhriyo culimadii unbuu ka hortegaya marka bal akhriska isaga inaad wax ka taabato sidoo kale aadan waxaa tidhi maxay ahayday culimadu wacyigan ma rabaan inay wajahaan oo tusaale ahaan oo kale waxay xuub siibeen dhaqankii soomaaliyeed inaad dhaqanka bal aad rabto inay culimadu ay isticmaasheen wax ka taabato waxaad carrabaabtay ood carrabka ku dhufatay waxaad tidhi culimadu markay xataa dadka wacdiyayaan waxay isticmaalaan gabayo carbeed soomaad garanin gabayadan carbeed haddaba adigu maxay ahayday waxaad aaminsan tahay halkaa waxaad dee nooga dhadhantay dadka afkooda soomaaliyeed sugaantooda soomaaliyeed ha lagula hadlo dabcan soo saaba haddaba maadaama aad leedahay sugaantii soomaaliyeed halla maxay ahayday adeegsado culimadiina ay gabayo carbeed isticmaalayaan ugu horreyn bal horta intaanan wadhaha kale ku gelin haddaba iigu soo dhawow akhriska iyo walaalkayow sida dabiiciga cid waliba ay og tahay wax kasta oo sidii uu ahaa si ka duwan ama ka badbadisa loo adeegsadaa way xumaadaan wadaysan qasadii saddex asxaabiyi midna yidhi habeen walba salaad binu taagnaanaya midna waa soomaaliya midna yidhi guursan maayo nebigu wuu ka diiday wanaagii cibaadaysa manayeen limaada lianna intii loogu talagalay in ka badan bay daneen iyo ahmiyad siiyeen fi nihaayana way ku fashilmi lahaayeen ugu dambayntana way ku fashilmi lahaayeen wax akhrisku waa waxa adduunku isku dhaafo inaad wax akhridaana waa inaad la noolaato 5,000 sano ka hor 2,000 sano ka hor dadkii noolaa dhowr boqol sano ka hor dadkii noolaa iyo kuwa nool iyo kuwa iman doona inaad wax akhridaa waa inaad wax fahanto si guud wax akhrisku barigan waxa la oran jiray dhegtu isha way ka daaweynta laakiin maanta isha dhegta ka daaweyn waxa laga yaabaa imkaan akhriyo buuggii jamhuuriya ee uu Plato qoray 10 sano ka hor aan maanta kula joogo wax akhrisku markaa si guud u maamuusan laakiin dhinaca kale markaan iska taagno afar qodob baan ka tilmaamaya oo qalad faan xagga wax akhriskeena kaga yimi ka mujtamac ahaan maadaama wixii aynan anigu imika maalinta wax akhriyo weliga cidiguma saasa wax loo akhriyo buug baan soo qabto waan iska akhriyo weedha dhamo mid kale aan soo qabto sidii baan ku wada qodobka koobaad aan ka tilmaamaya waxa weeyaan war markaad wax akhriyayso
wax kasto aad akhriyayso haddii aad rumaysanayso waxba ha akhriyin wax kasto aad akhriyayso haddaad rumaysanayso waxba ha akhriyin waa qaacido guud oo caama waa inaad waxan aad akhriyayso kala garan kartaa maxaad ka qaadan kartaa maxaad ka tegi kartaa qodobka labaad waxaa jira wax afka qalaad lagu yidhahdo critical analysis marka xataa maaha akhriska oo qura iminka dugsi anigii daawan maysaan doodaydan nin aadan sahal yahda ama aan taageero ama meel yara caanaba qabtay waan dhegeysanaya wax walba igu soconayaan ha u dhegeysanina war waxaa tulu ninkaas muku saxsan mise waa ku qaldan yahay qiimee shaandharee weligaa lahow markaad wax akhriyaysa dib buuggan intaan qabto wax allaaliya waxa ku qoran aan liqo qof baa jira intuu buug akhriyo buuggii laba adii loo lugeynayo ku imanaya oo beri mid kaloo noqday intuu akhriyo kiina nacdal ka dhigaya kana waxa ku isagoo loo lugeynayo ku imanaya war waxaad akhriyaysa il gorfeynaad ku akhri cumar ibn khadaab hadduu qoray il gorfeyneed ku akhri ruuxa ma ku saxsanaan kuma saxsanayn adiga noloshaada ma la jaan qaadi kartaa nolosha bulshada ma la jaan qaadi kartaa kaasina waa inaga dhiman yahay qodobka saddexaad qof kasta garaadkiisa iyo garashadiisu heer bay marayaan niiraan saaxiibnaa ilaahay daaya baa igu yidhi waa youtuber adina fidhiyodaada ma daawado misaan kudhi waayo kanaalkaaga ma galo misaan kudhi waayo misuna walaal daa'iman falsafad iyo jadali iyo wax muran iyo raaye iyo cilmaaniye waxbaad ka sheekaysaa inaan ku washaan ka baq isnoo dhiirigeliya misaan kuni aniguna walaal kanaalkaaga ma daawado dhiirigelinta waa nacdahayo noloshaa qalafsan iyo haadhkaa iyo jadalkaa iyo isriidkaasaan ayaan u janjeeraa qofku inuu garto war maxaa kula tan ah oo wax aada u wanaagsan markaad wax akhriyayso ama aad buug akhriyayso buugga koowaad akhrida hadduu noqdo buug falsafad ah ama buug ka sheekeynaya silic iyo balanbal iyo beri hore ama buug faham dheeraada u baahan tabana waad ku khalkhalaysaa waad ku khalkhalaysaa fikir qushqush baa kugu dhacaya waxaan qodobka markaa kaga baxaya war markaad aragti qaadanayso ama aad doonayso inaad aragti fahanto aragti kasta oo adduunka taalla ha wanaagsanaato ha xumaato aragti kulli diye baa jirta aragti islaam baa jira gaal baa jira mu'min baa jira mulxid baa jira aragti kasta oo jirta aragti kulli diye baa jirta haddii markan maanta ka yara cadhoodo wadaad amaan waxyaaba diinta ka yara fahmi waayaan markiiba bug yara calmaaniyada akhriyaan arrinta saasan calmaani ku ah hadhow mid kulli diye markaan akhriyo waan ka soo noqonaya war markaad doonaysa inaad aragti fahamto oo aad ka gungaadho isu akhri waxaa la yidhahdaa qofka falsafada marka la joogo qofka had iyo jeer jecel sidaa uu aaminsan yahay ama sidaa wuxuu arko si ka duwan inaanay dhicin ama cid wax ka duwan aaminsan aanay la iman amaanu doodka gelin wixiisa aan la carsharshayn dogmatism baa la yidhahdaa addoqmaa'iya afkan carbeedna anugu badanka marka meelahaas iga soo baxday waxaan u adeegsadaa erey LD halkaasay kaga baxnay ee iigu soo dhawow godobka dhaqanka dhaqanka meelaha waan arkaa iyadoo la leeyahay dhaqan baa dhintoo lasoo nooleynaya iyo dhaqan baa cinkan iyo dhaqan baa sidana dhaqanka fikir baan ka haystaa dhaqanka soomaaliyeed saddex waxba uu qaybsanaa waa fikirkayga agab la adeegsado ama weel la qoro ha ahaado ama dhar ha ahaado agab la adeegsado hab dhaqan bulsheed oo martisoorkii leh habkii guurka leh habkii dagaalka leh hab dhaqan iyo af lagu hadlo agabku maaha wax muqadasa oo lama taabtaan waa wax waaqaca la marayo ku xidhan awowgayga shanaad hadduu laba goo cadaad xidhan jiray aniguna maanta aan xidho shaar iyo surwaal aan dhexda iska xidho macnaheedu ma inaan dhaqankii ka tegay awowgay hadduu heli lahaa shaar iyo surwaal suun lahoo asturayo sidan jaqis ugu siinayo labada goobo geed buu ka laalaadin lahaa agabku maaha wax lama taabtaan waa wax la socda waqtiga habdhaqanka bulshadu mar kastoo bulshadu ay xagga reer magaalnimada u badato wax way isbedelayaan wax badan oo xumaano way hagaagayaan wax badan oo hagaagsanaana wax way iska bedelayaan dhaqankeena Soomaaliga waxa laga dhigaa wax lama taabtoono 100% wanaagsanaa dhabar garaac wax la yiraahdaa jiray caawan gabadh la soo hasaawaya weydiinaysayo adiga inay ka saayda ka xaynaya idigu labadeena gabadhii baan la caranana hooyada markii soo daba dhaqdana ka dhingadaynaya dhaqankeena kamid ah waxyaabo fara badan oo khaladaad oo dhaqankeena ka jiray baa jiray wayna ga bixin waxaan markaa ugu soo dhawaanaya qodobka markaa habdhaqankii bulshada wax isbedelay way jiraan wax badan oo xumaayo laga soo guriyay wax badan oo hagaagsan oo isbedelay way jiraan laakiin qodobka anigu aan u arko cidda doonaysa maanta Soomaalinimadu ay macnaha u sameynayso ama doonaysa inay wax ilaalisaa waa afka ataasna waa misana way aadan way u soo noqon doonaa sababta aan dhaqanka ku weydiiyay waxa weeye horta ma jiraan dhar u gaara diinta aw tiri diintu hala xidho tusaale ahaan aan ku yar tusaaleeye qof kasta oo khamiis xidha amba maryaha khamiiskaa xidha ma wadaad baa ma sheekh baa walaalkayow life style-ka waxa la yidhahdaa ama qaab nololeedku waa wax qofka u gaar anuu halkan timayga farka saariyan intii oo la baxay inaan uun ku xiiriyo inaan bidaar samaysto sida basadiir waa wax aniga ii gaar diinteenu nolosha dadka kuma diinu nasiix baa nabigu shuruudo guud waxyaabaha aan isbedelin
diintu wax xadidan ribada waa xaaraan baa laynagu sinada waa xaaraan baa laynagu waxyaabaha xadidan diinteennu waa xadidan waxyaabaha mujtamacaadkii say u noolaanayaan ah shuruuday diinteennu u samaysay war maradu shuruudayn laada mar kasta oo shuruudaha buuxinaysa mar kasta oo shuruudaha buuxinaysa waa maro diineed waxaan qodobkaa ku caddaynaya nabi maxamed sal allahu alayh wasalam iyo abujahal iyo abulahab oo adeerkii ahaa isku maray xidhan jirin waa qodob soo maaha waa qodobka labaad waxaa jira khamiiska bahalka la yihahdo suudaantu waxay xidhaan tusaale ahaan khamiis gacantiisaas aad adigu dhex geli karayso limaada dhulkoodaa kulul sacuudiguna qaar gaar ay xidhaan war ummad kasta dhar u gaara bay leedahay innaga maanta saacaddan la joogo kuwana inoo dhara marka adigoo imika sidaa mimbarka masaajidka waa soo istaagi karaa inoo dhaqankii Soomaaliyeed inoo wadaadnimo ah professorkan iyo wadaadkan iyo intuu ay wadayaan salaada aynu ku tujinaynaa kuwana maanta dhaqan inoo ah shayna lagu go'aan dhaqan inoo ah aadan oo kula kaftamo anigu bi khamiis baan xidhay anigu khamiiskan diin ahaan uma xidhnay waan arkayaa in indhaheed igu gubaysaan khamiiskan anigu waxaan u xidhanahay doorasho ayaan u xidhaa shaaris wula kaaga nawar xidhan jiray laakiin fariintaynu diraynaa wuxuun bay tahay uun ma jirto dhaqan u gaara diinta dhar u gaara diinta aniga kugu leeyahay life style-kii hab nololeedka waxa la yiraahdaa wax qofka maradu xidhanayo qofku maradu xidhanayo anigu khamiiska ma xidho ma nacayb anu qabiya xarab nacayb midna li asbaab shakhsiya sabab aniga ii gaaro shakhsiyadeed anigu nin aad u talaab dheereeyay markuu soconayo wuu dabraa gig laba jeer markuu iga siiyo inaan fayto inaan iskaga tago labada xaq ma dhaxeeyaan marka wax war inaan khamiis xidhan macnaheedu ma inaan diinta shaqo ku lahayn inaad khamiis xidhan ma inaad afarta madhabad ba ka joogaysay khayriye 30 baa war wax gaar markaa ma jiraan wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkeenii hadda waxaynu u gudbaynaa aadanow aan ku soo yaro noqdo xaggaa hore maxay yahay fanka fankii waxaa la leeyahay qolo waxay leedahay fanku waa xaaraan qolona waxay leedahay fanku waa xalaal culimo Soomaaliyeed oo waaweyn oonan carabaabaynin ayaa fanka iyo heesaha muusika wata xalaal u haysta bulshada inteeda kalena haddii ay maqlaan way ka didayaan oo tusaale ahaan maanta haddaan masaaj ka kaco oon idhaahdo maxay ahaydeen hees yar qaado waxaan odhanayaa dee fanka masaajka kala tag horta adigu aadan ahaan fanka sidee baad u aragtaa fanku laakiin adiga agtaada baadhidaad samaysay maadaama aad maxay ahayd baadhay iyo dee turjumaamo tahay baadhidaad samaysay fanku ma xaaraan buu agtaada ka yahay mise xalaal buu ka yahay fankii oo muusigiisii leh heesihiisii leh dee hawlihiisii leh bal noogu soo dhow niyo walaalkayo waxba xaaraan iyo waxba xalaala waxaan filayaa malaha ninka hadli kara anigu inaan ahayn laakiin ereyga fan markaynu isla fahanno maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana laga yaaba inaynu kala garanno war fan waxa la yidhaahdaa wax kasta oo farshaxan ah oo afshaxan ah oo ummad meel degani ay ku isman tahay koore ma qoran jirin waa fan dhar ma samaysan jirnay waa fan haamo ma samaysan jirnay waa fan durbaankaytinu harag hooyooyinkeen soo qaadan mismin waa fan fanka laftiisa yaa lagu soo koobeen hees iyo muusig meel madaxa la ruxo war wax kastoo afshaxana iyo farshaxani waa fan marka koowaad inaga haddaba waxaynu soo qaadanaynaa ereyga imika labada ereynu soo qaadanaynaa waxa weeyaan ee la xidhiidha mawduuceenna waa muusika iyo ereyada heesaha markaa aadan isticmaalkooduna waa aniga kuri culimmadu way ku kala tegayaan qolo isticmaalaysa iyo qolaan isticmaalayn bal waxaad inoo soo qaadaa tusaale ahaan muusika adigu muusika sidaad u aragtaa niyo walaalkayo markaan runta ka hadlo hal qodob baan ka fikiraa buug nin la yihahdo cali ciisad bego fiij uu qoray oo la yihahdo alislaam bayna sharqi walqarbi baan qodobkaa ka faa'iiday adduunka dadka ku nool cadaankiisa iyo madowgiisa gaalkiisa iyo islaamkiisa kaa maraykanka yihahdo adduunkan ugu ilbaxsanaha jooga iyo ka qiimaha afrika ku jira ee cawaanka intuba waxbay tuntaan waxaas ama durbaan ha ahaado ama wax kale ha ahaado waxay ku tusaysaa waxaan la garaacanaya iyo ciyaar raqameedan iyo ruuxankan iyo waxan wax ummadda aadamaha ilaa iyo bilowgoodii la soo jiray inay tahay anigu oran maayo horta heesaha marka muusiga halkan la dhigo heesna halkan la dhigo heestu waa af Soomaaliya af Soomaaliga xumina waa af Soomaali xun af Soomaaliga wanaagsanina waa af Soomaali wanaagsan muusiga yimi war muusu waa la kala aragti duwanaan karaa waa la kala faham duwanaan karaa kama hadli karo ma odhanayo waa xaaraan ama waa xalaal taan sheegaya wata adigu heesaha ma dhageysataa amba maxay ahayd ma taageersataa heesaha ma odhanayo waa xalaal ama waa xaaraan laakiin muusiga iyo dadku inay heesiyo fan tuntaan waa wax nolosha bulshada ka mid ah aniguna heesaa waan dhageystaa laakiin qaraamigaan dhageystaa waa dhageystaa qaraamiga dhageystaa
waa tahay aadan bal intaanan hore ugu sii socon barnaamijka laakiin heesaha qudhadoo ku jirtaa laakiin heesaha soomaaliyeed kuwooda bilaa muusikada ah waan dhegaystaa aadna waan u taageeraa kuwa muusica lama dhegeysto ilaahay beetiisa laakiin mobilkii muusiga ku soo dhacaa may mobilkayga xooga soo dhacdhacda anigu waxay ku soo dhacdaa wixii dee loogu talagalay guday waa tahay soo noqo waxa loogu talagalay lifta muusiga aad iyo aad baad u mahadsantihiin qolyaha istuudiyaha nagula sugan hadda waxaynu u soo kici doonaa dhanka su-aalaha aadasahan oo barnaamijkan marti inoogu ah dabcan waad nala socoteen oo qodobo dhowra buu ka hadlay ay ka mid tahay in ay maanta kala socdaan wacyigii bulsheed iyo culimadeennii waa tahay su-aalaha dhankiina idinkoon aadan waxba u reebanaynin qodobadiisaasina qaarkood dhaliili karaa markaad weydiinaysaan qaarna ku taageeri karaa waxba yaan laysula hadhin isaguna xor buu u yahay in uu wax walba ka jawaabo soo saaba soo xor ma tihiin aad wax walba ka jawaabto nin weyn looma dardaar wariyaho hal qodob baan ku dari lahaayoo iska runtii ah uun faallo ah waxa weeyaan waxaan ku taageersanahay in aanay culimada maanta soomaalidu ayna wacyiga bulshada soomaaliyeed la soconin baan ku taageersanahay aadan shifo aadan sahan 100%. waxaanan ku darayaa taasoo ku cadaynayaa tusaale ahaan bulshada soomaalida waxaa maanta 100% caan ka dhex noqotay baraha bulshada halkaasay wax iskugu gudbiyaan qoraalada la iskugu gudbiyaa fariimaha la iskugu gudbiyaa waxaa la iskugu gudbiyaa wax kasta oo run ahaantii mateli kara ama bulshada si uun ay fariin loogu gudbin karo waxa cad markaa culimadu inay weli iyagu ay ku maqan yihiin ama ay kaga mashquulsan yihiin taas khudbaddii masaajidka tusaale ahaan oo kale waxyaalaha ugu badan ee adeegsano ka mid a maanta dhalinyaradu dhammaantood waxbay akhriyaan qof kasta oo aqoon wax bartay waxbuu akhriyaa waxaan u malaynayaa inta aragtidayda intaan ogahay anigu culimada waa fara ku tiris inta qoraal samaysay ee inooga tegey dhaxalgal qoraal ah oo runtii dee aynu hadday fataawad noqoto iyo hadday noqoto iyaga laftooduba hadday maalin kastaba dhacdooyinka sida joogtada adduunka ugu soo kordhaya inay inagula wadaagaan baraha bulshada iyagoo qoraal ku samaynaya qaarkood af soomaaliga in lagu wacyigeliyo oo weliba qoraal laga dhigo waxay u arkaan dhaliil runtii mawduuca si fiican bay u galeen aan kusoo noqdo barnaamijku waxaad yara moodaa in itijaaha dhalinyarta kala socodkooga inay u badnaa haafkii hore halkaasaan hal faallo ku yara daraya kolley su-aalla waa ka dambaysiin doonaa qaybta kala saaridda maadiga iyo diiniga khusaysa sheekaan ku dare waxaa jirta waxaa la yidhi laba tuugba waxay u dhaceen bakhaar amba mool bay u dhaceen kadibna bakhaar moolka sida lagu yaqaano alaabtu meel dhexay wada taallaa kadibna laba baa usoo daadatay iyagoo ku dhex jira meel ay ka baxaan bay hore u waayeenoo alaabtii tuuleyd bay ku wareegeen askartii baa kadibna la soo wareegtay kii dambe u soo dhawaatay moogta kadibna kii hore yidhi war lagu qabanayaa ninkii soo dheeree lagu lahayo loo digayba wuxuu yidhi adeer 9 wareeg baan ka horreeyaayo ima soo gaadhayo 9 wareeg baa warsane haysikaysigu markaas ayuu qaban doonaaye waxaan uga socdaa xagga akhriska markaynu joogno kala socodka yani dhallinyarada iyo culimada waxa weeye dhallinyaradu waxay ku daadatay aqoontii maadigaa baratay tusaale ahaan akhriska khuseeya qaybaha tusaale ahaan falsafada sayniska aragtiyo noocaasa oo aan la haysanin iyada lafteedu waaqaca bulshada Soomaaliyeed kadibna waxaan oran karaa waxa ay awrka ku xidhanayaan oo awrka ku xidhleeyihiin dad 9 wareeg ka horeeyay kadibna waaqacugayo halka ay isleeyihiin awrka ku xidhay isba waafaqayaan culimada laftoodu waxaad moodaa usluubkii hore ee aynu ka dhaxlay yani dadkii hore ama sidii Soomaaliga 1900 ama 1900 dhexdii loo wacyigelin jiray ayay ilaa imka ku wadaan kadibna halkaas ay istiidadu ka soo baxaysa dhinac kale marka laga eego aqoonta waxaan idhaahdo asalka diinigu waa asal raac yani waxa weeyaan wax kasta oo ka sokeeya sunnaha iyo quraanku waa in laga hufo oo asalka la raaco aqoonta maadiguna waa waaqac raac
marba halka la marayo aanad la socoto aanad aqoontii hore aad u sii ihtimaamin taa lafteedu waxay u baahan tahay in xidhiidh laga dhexaysiyo koley hadal badan waa muuqdaa laakiin waxaa weydiinaya aqoonta aynu leenahay tusaalahaan waa la kala saarayo diin iyo maadi baa loo kala saaray aadan ahaan sidee baad u aragtaa in dib laysugu soo dhoweyn karayo ama haatan loo midayn karayo maadaama aynu ognahay inay aqoontu aanay halkii hore taagnayn oo aan mar quraata la isku wada noqon karin filosof aqoonyahan xisaabyahan fiqiyahan waxyaaba noocaas aan la isku wada noqon karin waxa weeyaan biologyga laftiisi uu boqolaal takhasus leeyahay sidee waxa weeyaan qofku uu noqon karaa qof fiqhigii iyo tusaale ahaan aqoontii sayniska iyo teknolojiyadda bismillahi raxmaan raxiim walaalka aadan sahan iyo mustafa shifo iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha waan salaamayaa su-aasheedu waxay tahay kolley waxaa la falanqeynayay culimmada iyo wacyiga kolley anu waxaan aaminsanahay diintu inay muqadas tahay laakiinse cid dhaliisha ka sarreysa inaanay jirin naqdiga iyo dhaliisha markay noqotona dadkeena soomaalidu waxay aaminsan yihiin inay tahay ataag iyo wax saas oo kale ah su-aasheedu waxay tahay markaa sidee baynu culimmada wax ugu sheegi karnaa iyagoon u qaadanayn inaad makaanadooda iyo shakhsiyaddooda iyo mansabka ay bulshada ugu jiraan adigoon liidayn sidee baynu wax ugu sheegi karnaa maadaama ay aaminsan yihiin inaanay culimmadu lama taabtaan ahayn oo iskaga khaldan yihiin diintii iyo culimmadii sidee baynu wax ugu sheegi karaynaa waayo aadan weydiimaha waynu qaybin doonaa waxaad imika ka jawaabi doontaa 3 weydiimood ayay soo dhawo weydiinta koobaad walaalkii baan sheegayaa weydiinta koobaad ah waafajinta culimada iyo wacyiga iyo weydiinta labaad ah sidee baynu culimadii wax ugu sheegi karnaa weydiinta ugu dambaysa waliba weydiimada isu soo hosgelaya waxaan iyaga kaga jawaabaya qodobkan halkan ka sheegaya ahaa war culimo waanu idin joogsannahay waanu idin salugsannahay guud ahaan badankayagii aniga diintii la fikirka ah waxbaanu tabanaynaa waxbaanu leenahay way khaldan yihiin bal inta noo timaadana marka nala soo fadhiisataan de isbaraxa oo war adar waxba ma khaldana shaydaanka iska dhaaran dhah waa tiridii dhalinyaro ma dhama ninkuu geed ka boodiyo talo wuu ka boodaya waa suura inaanu annagu caadifadoonnay xamaasadoonnay oo waxaan jirin isla eegeegnay inta darka ila soo fadhiista iyo qanac haddii ay dhacdaan kaa saxsanaadana dee hartaa waxbaan bedelayaa ee iga warsugna waa wax dhan laakiin sheekhaygaba marka aanan helay marka quraan helayaana ay noqoto markuu ama masaajidka tujinayo ama intuu halkaas soo fadhiisto laba qodob tuurayo dhaqaaqayo dee walaal way adkaanaysaa sidii culimadii iyo wacyiga inaynu isu waafajin lahayn iyo sidii aynu ugu sheegi lahayn waxaynu tabanaynaaba taasina waa takensanaysa in la arko dad intay halkaa u baxaan iyagii caaya karaamadoodii ku gafa shakhsiyadoodii ku gafa jiritaankoodii ku gafa inta oo dhan midna ma yimaadin haddii dhallinyaradii ay leeyihiin culimada ay leeyihiin waa ba dhalinyar kale mar baa jirtay burco sanad ka hor aanu ka qabanay sheekh mid ka mid culimada burce iyo dalkii waaweyn aanu yeernay su-aalo badan aanu weydiinay xoogaa mooyaane uu dee wax uu nagaga saxsanaaday iyo wax uu ka garaabay bale mooyaane koob ilaa tan su-aalo wax ku dhadhow yahay maan filaya intoodii ugu badnayd barnaamijka waanan duubin oo ciyaarnimaan la qaadee intoodii ugu badnayd wuxuu yidhi waan kasoo jawaabaya sanadii casasaan baa kasoo wareegay ilaan waan sugayna markaa walaalkayow isma waafajinayno sheekhe horta sheekha markaynu leenahay aynu kala saarno war waxaa jira rag waaweyn oo culimaa lixdankii iyo daba maray iyo meelaha oo waaqicii ay wax fahmi lahaayeen ama ay wax innagii nala jaan qaadan lahaayeen dhaafay iyo rag iyaga ka waabsano kuwa inala jiilka ah ee ay wax bareen iyo kuwa kasii yara sarreeya iyo waaqicii fahmi karaya anugu canaanteedina 100% cidii ku wajahantii ragga yareedan anuu sheekh mustafa maanta maagi maayo sheekh cali warsame maagi maayo xilli baa loo baahnaayo waaqicii mujtamacu mariyay way fahmeen wayna guteen anuu raggan maagaya raggan dambe oo waliba ma maagaya daan leeyahay war ma yaryar balaynu gorfayno marka waa isma waafajin karno culimadeena iyo wacyigeena haddii anaga iyo culimadu wada fadhiisanayno wada hadlayno culimadiina uma sheegi karno waxaynu tabanayno haddana inala fadhiisano aanay inala hadlayn iyagoo masaajid ka soo yiraahda dee waxbaa waalan iyo dhalinyara la waalayo gaala wax waalaysa mooyaane qodobka xiga ah sidee aqoomo fara badan loo baran karaa qaacidaa jirta af carabi baan ku arkay tirahda laazim an tacrif kulli shay min shay wa min shay an kulli shay waxaa lama huraana culumta nolosha iyo culumta adduunka taale diiniya iyo dunyawiyanba in aad shay kasta wax ka qaadato wax ka xantoobsato waad fahansan tahay biology aad fahmi karto sarfi aad fahmi karto balaaqo aad fahmi karto xadiis aad fahmi karto hal waxna lagu daba fadhiisto qaabka la isu waafajinayo labadan waxa weeyaan wax fogba ma aha anigu malihi macalin maxaad sheekhayga malihi maxaad biology baran weyday inta sarfiga dhigtay biology inaad igu dhigi weyday malihi war qof kastaba cilmiga inbuu ka barto ku saababay laakiin waxaa leeyahay war madrasadan ama goobtan diimeed aad dhistay goobtan waxbarasho aad dhistay
ka dhig goob adiguna intii diintaydaad ku dhigayso macalinka biologiga yaqaana intaad u yeedho aad saska ka qabta dhexda xiran isna biologiga ha dhigo dugsigaagan ha noqdo dugsi qof soo saara dhisan oo diintiina ka dhisan culumtii kale uu ku shaqaysan lahay nolosha wax kaga qabsan lahaana ka dhisan oo bulshadiisa dhinac walba ka anfaca walaalkayow labadan cilmi kala maqnaanshiyahoodu dhibtuu leeyahay baan kuu sheegaya haddaan maanta barto chemistryga si wacan ugu takhasuso sumaha sida loo sameeyaa barto oo aan barto sunta dhidhiitada soomaalida sumaha yaqaanaan ugu caansanaan dhidhiitada barto sida loo sameeyo saynisku ibari maayo physics iyo biology chemistry midna ibari maayo suntan saaxiibkii mustafa haddaan ugu daro shaaha ama aabbahay aan shaaha ugu daro oo uu dhinto inay wax xun tahay iyo inay wax wanaagsan tahay maxaa ii sheegaya waxaana xun iyo waxaana wanaagsan diin baa ii sheegaysa waayahay markii diintii halkaa la geeli si gaara loo barta waa wax gaaro madax bannaan sayniskina halkaa la geeli wax gaaro madax bannaan dibrinta nuclear sameeyeen hargeysa ku dhufto wax iga diidaya ma jiraan haddaan maslaxadeeda iyo danteeda ka dhex arko marka walaal anigu waxaan leeyahay war macalinkayga qodobkan aan kugu haystaan ku leeyahay war cilmigii baad kala saartay markaaskan isagoo jiro markaas fulaan oo imaam shaafici oo markaas ataqwa ah oo markaas fulaan kale ah culumtii oo dhan ha lagu wada dhigto ardaygan hadhow kana ka dhismo wuxuu doonaya isagoo ha doorto waa qaabka la isu waafajin karayo marka muhiim maaha inuu intaba ku wada takhasusa qofkii doonaya de markuu ishu u baxdo ishu markay kuu baxdo falsafada intaasoo buuga laga qoray akhri sociologiga akhri intaasoo cilmi akhri aday kugu taalaa taas laakiin ardaygii saaskii hoose waayo aad baad mahadsan tahay aynu nimaadno xagga su-aalaha intaadan su-aasha u gudbin mustafaw raala laga yiraahdo qodob aan yara qayaxo in yar qodobkaas waxa weeyaan waxaan sheegay mar dhaweed anigu dhaqanka inaan aaminsanahay kala nooleeya inuu yahay afka markaan leeyahay af soomaaliga dee maanta af soomaaligu waa muhiim murti buu lahaa waxaa ka wada hadli mayno war af muxuu ku dhowrmaa su-aasha muhiimka waxa weeyaan af waxaa la yihahdaa muxuu ku dhowrmaa af wuxuu ku dhowrmaa in la yidhahdo kuma dhowrmee in la qoro oo uu dhigal karo afka carabiga maanta wadamada carabida wadan afkii carabiga ahay la yaqaanin ku hadla ma jiro wax aynan garanayn Chinese iyo Ingiriis iyo wax hadlaya oo lahjad yahday ku hadlaan maxaa af carabigii xilligii Nabi Maxamed joogay ilaa maanta uu joogay dhaqaaq ilaahi ilaa qoraal buu kala anigu waxaan aaminsanahay inta wax qorto ama Facebook wax ku qoran ama meel kale wax ku qoran inta wax qorto iyo khaasatan inta buugta qorta marka soo ay af Soomaaligii isku dayaan ereyadiisa rasmiga ah inay baaraan oo ereygan xataa ma aha dadkii dad isugu qortay af Soomaali waa inaad soo fadhiisad gabaya ka soo ururisay oo qofkii wuxuu fahmay wixii macni baa ka dhimanaya aad isu miirto isku dayda ereygan inaad sharaxdeed hagaajiso afkiinu inoo dhowrmaya waxa ugu badan iminka buugaagta aan turjumo igaga soo noqda waxa weeyaan af Soomaaliyan cidina garanayn baad ku hadashay reerahooda ma hay afkiini caadiga ah taasaan aaminsanahay afkuna afar meelood buu ka dhintay oo uu ka sii dhimanaya وري مصطفى شفوه كده من يا ديك صحافه يسوق مصطفى افرط قيح هدينا يسوق مصطفى بعد يجي سوا كان يسوق ما وان كاغا بخيا وريها دنكي صفكو كدنت معلن كنا اما مid biology chemistry ga ama mid diin dhiga ha ahaade agtiis afku ka dhintay qorada la yiraahdo hooyooyinkana afka xaqooda uu ka dhintay waxa jirta hooyadu iminka dhamaantiin uu wada garan hooyooyinkan uu inoo is jireen oo ciyaalka iyagu heesiin arki jireen hooyooyinkan dambe heesba ma yaqaanaan xool bay ku ridaan ama siiro dabiici nolosha bay la jaan qaadeen afkiina halkaas hoos buu uga dhacay qoliyaheena wax bartaana afka agteena uu ka dhintay afarta dirac baa afkii hoos u dhac baa kaga socda war afku waa waxaan Soomaalinimada lagu sheegaya waa af wax kale ma aha hadeergiisa ay luqad gaar yeerto fircoon ay luqad gaar yeerto Soomaali wada ahaan mayno idinku waxa la baxsan waxaan la baxayna dadka waxa soo hayaa afkaas haduu inaga dhintana wuu kala tagayna cidina wax sheegan mayso ana waxaan imsan afkeen la ilaaliyo cidii aad maadsantahay aan soo dhaweeyay imika xaggan Allahu musta'an inanta kaliya dhagu dhex jirta inanta horta mikrofon ku dhib kadibna inaka ku xigo dhib inana soo kooba waqti baynaya مصطفى ده ولا واحد ترساق بهذا البدنينا وهاي تبان كهبين ما حصل رجع حنو دح فدي وهذا البدن هي مركا واحد مودي صارت آذن يا بالشدك ساقب قشيبون سلامية أنت كدي واحد مودي إجزات اللي حكاها لي آذن إنه فهمي كرقف لبدن مجال اللي جاه الله يلا بدأ بكو دحشرة أما بكو سو دحشر إجزات اللي قف قاس ما ستوس وفهمي كرا أنت كلا واحد لقيا بجارجارك وحبرتينا de waxba ku soo yara duulduulay kala takoorana marka horta takoobaad waxa weeyaan inta badan sababtan culimadeenu ay saameynta badan bidankooga u lahayn waxa weeyaan aqoontii oo dhan kaliya kararan anu sanaamisanahay wana exactly wuxuu simanaya mawduucan ah labadan aqoonood ee la kala saaray marka waxa laga yaabaa dad badan inay ku jahawareersan mawduuc markuu socday labadan aqoonood la kala saaray iyo mawduuci barnaamijka marka ay soo hoos galiyaan takoobaad waxa weeyaan aniga kale waxaan dadka xagga diinteena wax ku soo bartay maadigana sidoo kale
soo maxad baan dhiganayay jaamacaddana waan dhigan jiray marka engineer baan dhiganayay macallinkii wuxuu dhigay wuxuu soo ogaaday inaan keliga la dhigto 50 nin keligay soo waxay noqotay siduu iigu waday inaan fakalkii dhammaa bedelo oon kadibna akoonti qaato waa wuxuu yaamisiyey inay xaaraan tahay inay waxaasoo nin keliga wax ku dhex dhigto marka kadibna fakal kalaan qaatay haddana waxay noqotay fakalkii kale inuu igu idhaahdo jaamacaddii ka bax waa dembi mar haddaad diini baranaysid maadi la barto exactly taasoo wax aniga igu dhacay waanan dareemi karnaa waana takoorka laftirkiisuna uu jira waxaa laga yaabaa inan sheekhadu xijaab xiran haddii kasoo horbaxday inanaan xijaabnay inaan islaaminba qaarkood badankooga marka taasi way jirtaa su-aasha labaad aan usoo gudbaya waxa weeyaan sidee aadayno tol aan waxaan aaminsanahay already hadda jiilkan jooga ee gaarka wuxuu bartay ama dee maxad gaaraha soo barto ama shareeco gaaraha soo barto ama maadi gaaraha soo bartee already waa dad informationkii la siinayay labada dhinacba qaatay marka ma kula tahay in iyaga la bedeli karo mise waxay kula tahay inaan iyagu halaysla waashay intaan iska dayno jiilkan hadda soo koraya ee yaryar baawarka la saaro oo iyaga la geeyo iskuulle labadii aqoonoodba lagu bixinayo saaxiibkii mustafe iyo soo kale aadan oo soo dhaweynayo waalidiin mahadnaqaya su-aasheeda waan soo koobi doonaa aadanu waxaynu sheegnay mashaakil bulsho mashaakilka bulshana isla bulshada laftarkeeda ayay u taallaa sidii ay uga jid bixi lahaayeen ay xalal u keeni lahaayeen maadaama haddaba arrinku saa yahay mashaakilka kala duwan aynu sheegnay asbaabo kala duwan bay leeyihiin maalan wadaadadan iyo cilmadan dambe ee dhallinyarta ah qaar fara badan oo ka mid ah dalka dibaddiisa wax ku soo bartay waddamada carabta oo kale thaqaafadooda bay xambaarsan yihiin af caraybaa buu shareeco kaga soo baxay sacuudi buu wax ku soo bartay suudaan buu wax ku soo bartay af soomaaligiisii yacni ma hodansana oo mu hudmin okay marka haddaba asbaabe waxaa ka nimaadno waxaad u badnayd iminka hal xal xalkaasina waa naqdiga waan kugu waafaqsanahay waa muhiim nin woo laydhaa baa wuxuu yidhi naqdi la-aantu waa mushkiladda ugu weyn ee haysata xornimada iyo xalkaba waan kugu raacsan naqdiga laakiinse adugu ha fikirkaaga ase aadan ahaan maxaa kuu diiday alternate solutions yacni xalal kale oo naqdiga ka duwan oo aynu mushkiladahan bulshadeenna haysta kaga bixi karno 1 2 3 waad mahadsantahay inaad tirado marka koowaad horta culimada marka aynu ka hadlayno culimadu waa waxay leeyihiin ama inta aynu ku naqdayna in ka badan oo ka wanaagsan baa jirta culimadu waxa ugu weyn ay inoo badbaadiyeen waxa weeye waxa qofka adoonka iyo ilaahay ku wada xiriiraan oo ah in badan inay u soo dagaalamayeen dadku inay ilaahooda ku xidhnaadaan qof kasta oo culimo dhaliil way iman kartaa marka koowaad horta sababtu waxaan dhan u sameynaya waa wax wanaajoon isma lihi waxaa jira qof waxaan sameynaya si uu wax u qaldo wadaada marka inta badan culimadu waxbay wanaajinayaan halkan markaaynu fadhinay ama dooda markaan qiimeeyo anigu si guud marka koowaadba culimadii baynu xagga ilaahay marinay deetana waxaynu iska dhignay inay culimadu ilaahay naga xigto oo inuu inagu ilaahay xaggan kasoo yar xigno iyagu xagga ilaahay ay xigaan oo inaan ilaahay u sinayn ilaahay qof walba qof ahaantiisu la xisaabtamayaa qofka wadaad uma sii marayo diintaadu ama qofka wuxuu aaminsan yahay iimaankiisuna adiguunbay kugu gaartay ee culimo cidina kulama xisaabtamayso waaye markaa barnaamijka markii aan fadhiyey amintii aan dhegaysanayay ma jirin door cayiman oo aynu culimada ku ognahay doorkee baynu ku ognahay ma door hogaamineedba ma door wacyigelineedba ma door nooceye baynu ku ognahay culimada markaa horta bal doorka culimadu aad doonaysaan inay inoo galaan inoo qeexa marka koowaad su-aasha labaad ku weydiinaya waxa weeye marka aynu ummad islaaman aynu nahay waxaa lagu weydiiyey su-aal ah fanka ku saabsan iyo muusiga ummad islaama marka aynu nahay isma lahayn waxay geli doontaa su-aashaas oo kale 50-50 muusigu inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay muusigu xataa haddaanu xaaraan ahayn wuxuu sameeyaa jawi ay xaaraani ku dhacdo wuxuu sameeyaa isdhexgal rag iyo dumar wuxuu sameeyaa meelo la isugu imaado wuxuu sameeyaa meelo lagu tunto wuxuu ka baxaa xadka caadiga markaa muusigu xataa ka heesa ayaa og inuu abuuro jawi ay xaaraani ku dhacdo haddaanu isagu toos xaaraan u ahayn jawigu abuurayabaa xaaraan ka dhigaya waaye waxaa saddexaad ee aan ka daba tegaya waxa weeye wadaadku in isaga la tixgelin waaye isagu muu sababin waxaad ku sababaysay in lasoo dilay ilmaha yar deetana uu cuqdad u qaaday waxyaabo saas oo kale in badan waxaan youtube-ka ka dhageystay adigoo ka hadlaya mashaariic meelo kale inaga yimid exactly wadaadka in qiimihiisa hoos loo dhigo ama si babliga meelaha fagaarayaasha laga caayo waa mashaariicda aad ka sheekaysa mid ka mid oon ummadun baana soo qaadatay waayo wadaadku markaa dhaliilihiisa uu leeyahay qiil uguma dhigi karno inay dadku ilaahay kaga fogaadeen wadaadkaa dhaliila leh dartii ilaahay baa looga fogaanayaa ma noqon karto
dhaliil aynu wadaadka aynu dushiisa saari karno wadaadku dhaliil uu leeyahay inuu dhaliil leeyahay macnaheedu ma aha inuu isagu xun yahay macnaheedu ma aha inay diinta xuntay macnaheedu waxa weeye inuu qof bani aadan yahay waayo ugu dambeyn hal dhaliilun baan wadaadada usoo jeedinayaa bisay la-aana dhaliisha inkastoona jecla inaan wadaadada ku degdego haddana dhaliisha keliya inuu soo jeedinaya waa bisay la-aan uma bisla inay isla bedelaan isbedelka sabanka ama dunida inay isla bedelaan sidoo kale uma bisla inay aqbalaan afkaaraha cusub umana bisla inay u dhaqmaan si cusub oo sidii ugu horreysay okay in yaroo bisay la-aantaas haddaba aan ugu daro aadan iminka aadan waxaad noogu bilowday inaad facebookga inan ka wada sheekaysateen inantaasi ay ku tiri ereyga hulno deetana ereygiiba adigoon hubsanba aad blocks ka saartay exactly waa intaasun bisay la-aantan sheegaya magacaygu waa bilaal mustafe waxaan ka baxay kuliyadda shareecada islaamka ah ee jaamacadda golis waxaan baraha bulshada xidhiirka kusoo gudbiyaa inaan mar kasta isku dayo bal ummaddeeda inaad wax la wadaagto waxaana badanaa isticmaalaa habab ka duwan hababkii aynu isticmaali jirnay 5 sano ka hor 10 sano ka hor qaybta islaamiga markaynu ka hadlayno oo ah uun inuu wadaadku soo fadhiisto meel ka hadlo uu gudbiyo fikirkiisana uu halkaa ku gudbiyo ha ahaato wax uu dhigo ama ha ahaato wacdi uu soo jeediyo isbeddelka iyo inaynu fahanno waaqica iyo inaynu shareecada islaamka ah iyo faafitaankeegii waaqica lala salaysiiyo ayaan bal isku dayay inaan ka fikiro badanaa dadkeenu waxay daawadaan filimaanta iyo waxyaalaha aflaamta hollywood bollywood nollywood waxay badanaa ku gudbiyaan fikiro bal waxaan isku dayay inaan shortest films yar sameeyo oo ku saabsan markaasi shareecada islaamka anoo bal isku dayayeen marka waxa igu imid naqdi fara badan baa xagga igaga imid iyagoo badanaa dadkii diidaya oo aaminsan inaan wax khaldan ku sii socdo horta bisay la-aan xagga ah inaynu bal waaqici la soconno waan ku mahadinayaa barnaamijkanna barnaamij aan aad u xiiseynayay buu ahaa oon raadinay hal su-aal baan weydiinayaa oon ku celinayaa aadan wuxuu ku bilaabay inay marka masaajidka ay culimmadu odhanayaan istahu in af soomaali lagu bedelo bal waxaan ku odhanaa halkaa ku noqo waayo istahu wactadilu waxadu bayn almanaakibi walaqdaam waa xadiis uu soo wariyey ibnu cumar عمر بن الخطاب إن كيسو عبد الله بن عمر وأنا حديث صحيح بل هل كان إن شاء الله إنه حديث يهي أو مركز حديث كده في عربي اللي قش هيك يونان كلمة عربي يونان عين أيابان إن سؤال شدة أنا سوكوية هذا واحد كويدينيا إن واحد رواين إن علماء يسافر استعميسك إن علماء محمو ويسافر السنة ساعة إن طالنيرتنا يسافر السنة لكن إن soo fadhiisinaysa oo shaqada inoo qabanaysa weli ma jirto maalmo dhowd weyn arkaynay baraha bulshada sheekh culimada Soomaaliland weliba hargeysa kamid ah idin masiixiyo doodiyo weliba saacado doodiyo weyn arkaynay wax natiijo soo ka soo baxayna ma jirto yaad leedahay shaqada qabo ma dawlad bad leedahay shaqada qabo dhalinyartii culimada soo fadhiisay iyo waxa qabo yeenu labadan kooxood inuu soo fadhiisana inta ay garantay warcelinaha weydiimaha xaggan inaga soo noqday iyo aadanow tala bixino fara badan oo macadaratay la soo jeediyey qudhaadu iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu imika fooda la galay intii doodaynu caawaba ka wada hadlayna waa intaanu imika isleenahay magacaygu la sheeg waa inta maxamed aniga maantii leeyahay war aadan waxaan kugu raacsan waxaan kugu raacsan inta mid baa isku xumaysanaysaa barnaamijkan wuxuu u baahan yahay waa intaas si guud ahaaneed su'aasha koobaad ah معلومات اللي فتودي بينو بدلونا هنا بكارين بينو بدلهم سجل كأنه قدام بيا نيه ولا وحنا واحد مركين الحلية وباهم وحنا واحد استراتيجية ده للدتشيو وحيلتها ما أنت وذات كل صوف سيوم كبدل يا بدل يا هذا قدام جور من هنا الأورانا يوكليا شيخ سدني وحسوا عضاني أنت سوين فهنا سوا حوت وحلا بدل يا مش الأورد وحده وده وواحد إنه نقول وحده سوده وسوده إنه قاب كان أنا كان قارئ واقعهم أي ميلنا ورسدنا ولا كان قاتسي مركا يجينا ترى داسين وسينا لنا ورسدنا وضع النجينا تواجب بين الصار أنتنا ما تفهمتي سلا ولا الكلام سلا بدي وحب إسكو جران إسكو وضع الصار تواجب الصار واجب هذون نوع المدي وكجابينا وعيجين تام يجودن يهدي كلام واجب بين الصار إنه ولا بدي بيسوافش إنه يسوق بينه أنا إن شاء الله واجب كأنت هذينا وأنا كقبسنا يا وأنا كقبسنا أي مكان وأنا كنت داله وين قدم كحجاء
ardaygan kusoo bartay dibadda ee carabida iyo aan soomaaliba arag isaga ka waran habeen maalin baa waxaan sheegayaa fadxi jaacad ka mid a jaacadaha shareecada ku sheegana burca ardaydii ka qalin jibinaysa baan maalin galab kusoo hudheel ku kulannay su-aal baan weydiye waxaan ku warni baa af soomaaliga saad isku tirin wallahi iskuma ficnin bay yidhahda dhowr nin bay ahaayeen waxaan ku dhinayahow hadhow markaad dhammaysaan iyadoo cadiyeysaan diinta u sheegaysaan way fahmi waayeen waxaan ku soomaali mise carab damee soomaali af soomaaliga aad ma taqaanaan maya dhaqanka ma taqaan maya suugaanta ma taqaan maya waayo iyo wallahi dee miyina maanaan tegin oo ma naqaano war af soomaali liya yidhi miyi buu yaalla af soomaali hal buug oo soomaaliya weligaa intaad soo qabatay ma akhrido xaggaa ma uga baxday maya war maca iska daa sacuudiga kusoo bartay ka burca kula jooga iyo hargeysa ayaa wuxuu ka xishoonaya magaciisa markuu qoraya inuu aadan khadar caliyo af soomaaliya qor xaggaas waxaan kurisaa uga qalqalcunayo ruqcada iyo waxay qorayaan ilahay yaab ku keenayo marka wala anigu ma lihi war shakhsiyaadka xaggaa ka yimi shakhsiyaadka xaggaa ka yimi ama guud ahaantooda maxay sidin wada samayn waaye anigu waxaan leeyahay war si guud ahaaneed wixii aynu inagu lahayn iyo soomaalinimadeen iyo ruuxdii soomaalinimo ama far ha ahaato ama far walaatiin macnaheedu maaha inuu gaal leeyahay ama ay far gaalaa tahay ama ay wax xun tahay waa waxaynu maanta inagu leenahay shaarkan suraalkan yurub buu inaga yimi laakiin maanta innagaa le way soomaaliyoobeen waynaynu adeegsanaa anigu tan walaa leeyahay waxa weeyaan war si guudba shakhsiyaadka meelaha wax kusoo bartay waa gaari maca kuwa halkan jooga war waxaynu leenahay aynu ku faano aynu dhaafno fahankan aynu fahansannahay carabtu inay ka sarayso soomaalida qodobka kaasuun baan ka leeyahay qodobka xigee ah aadan maxaad xalal u keeni weydi tani waxaan filayaa xalku wuxuu imanaya marka wixii laga doodo haddaynan wada doodinba maxaan xalka keenayna haddaynan intaan wada fadhiisano dhan war waxaa saamayo inaan isku celcelin xal miyaynu keenaynaa maanta inagu waxaynu wadnaa waxaa weeyaan naqdintii warniyo mushkilada jirta xaggay dhankooda ka jirtaa culimadii marka inagii culimada wada fadhiisanaha xal soo baxaya xalkuna waxa weeyaan maanta xalkana xalka lagu gaaraya waxa weeyaan in la wada fadhiisto qodobkaasiga intaasaan ku dhaafaya qodobka xigee naqdintii ahayd ee maxamed haddaan usoo galo waxaynu aaminay culimadu inay ilahay naga xigaan waa xaqiiqo de weynay naga xigeen xilligaa markii la joogay way naga xigeenoo ninka wax yaqaanka ah ee aqoonta yaqaana ee cilmigii garanayay diintii garanayay iyo ninkii geel jiraha ah salaadi xataa anigu bilownayn waxaa jira sheeko xaggaa ka dhacday qolada tolkayga aniga ah sheeko ka dhacday oo odaybaa geel badan buu lahaa jirtan wuxuu arkay inankiioo salaad tukanaya suu war aabu geelaa salaadii ka daa buui waadadan salaadaa kadayna inta maqribkii ka daa waadadan taa maqribkii ka dayna nuunuuda aad ka dambaysiso oo ducaysigii aabu ka daa tolkeena geellaan laguma dhex joogi kara laakiin diinlaan lagu dhex joogi karaa ninka halkaa taagnaa ninka diintii siday dabada mar walba waaqicaa keensanaya dadku inay fahmaan markaad mar walba xadiiskii iyo diinta ilaah ii sheegayso madaxaan kuu laalaadinaya waxaa jira ilal aan miyiga way ka jirtaa culimada iska habeen iska soo baxaysa reer bay iska dul degaya neefkaa lagu taagaya haddii hal neef reerku leeyihiin waayo waxaa mise inuu ka maqaam sarreeya wayna naga maqaam sarreeyaan mana diidayna fadligooda laakiin maanta waaqican la joogo waa la iskaba leekaada anigu marka wadaadku ilaahay iga dhowyay limaada way iga cilmi badan yahay laakiin in baan la fahansanahay intii asaasigeeda biyaskaad isaga ay baran waan la fahansanahay marka kii loo baahnaa inuu bedelo waaqican ah wadaadku inuu dadka ilaahay ka xigo ee markuu wadaadku khaldamo odhanaya hayaa oo diintiiba ay soo taagnaa kan loo baahnaa inuu fahansiya waxay ahayd macalinkeena iyo wadaadkeena doorkii maxamed waxaa tiri walaal ay culimadu leeyihiin maba inaan caddayn ma hogaamin ba qodobkii koobaad anu ka hadlay waxa weeyaan war culimadu doorka dhisitaanka iyo wacyigelinta ayuu mid ku leeyahay culimada muxaadirooyinka halkan qabta mushaar baynu ku siinaa khudbadda jamaciyeen oo kale mushaar baynu ku siinaa duruustayna wada mushaar baynu ku siinaa waajib baa saaran ah wacyigelin wacyigelin doorka culimadu nolosha ku leeyihiin ee inagii nagu leeyihiin waa wacyigelin iyagoo de meel walba geli kara wixii noloshiisa u shakhsiga hadduu siyaasi noqonaya hadduu ganacsadi noqonaya waa wax u gaara laakiin maadaama aqoontii ina dheer yahay waa inuu diinta ilaahay faafiyaa oo ina wacyigeliya inagu waxaynu ka hadlaynaa lamaha sheekh maxaad hogaamiye noqotay maxaad siyaasad u gashay maxaad ugashay waxa weeyaan sheekh sidaad noo wacyigelinaysay ayaynu salugsannahay doorkeedu waa kaaynu caawa ka hadlaynaa walaalkeedu taana haddaan intaa ku dhaafo waan ogahay oo mashaariicda culimada lagu durayo waxaan umaynaya malaha shakhsiyaadka ugu badana ka hadlabaan iyo mashaariicda guud ahaanba waddankeena laga leeyahy waana wax xaqiiqa ahoo dee qofkii doonaya inuu fahmaa wuu fahmi karaya laakiin walaalow hargeysa maanta hargeysa soo ciidan male soo wax walba male hargeysa haddii maanta laga dareeriyo ciidanka jooga oo dhan layihahdo iskaga baxa magaalada meel kala taga fawda iyo qasmi ka dhacaya iyo qulub manisboobaya maniscunaya manisdilaya ilan waxaan ugu kala baqanaa waa dowlad iyo ciidane war marka goljarceeda aan muujiyo halkaa markaan goljarceeda ku muujiyo wadiga qaniinaysa wadaadkayga iyo sheekhayga iyo macalinkaygu maanta meesha waranka lagaga dhufanayo isagiibaa banaysanaya oo wuxuu u banaysanayaa
wacyigelintiisi baa laga soo dhex saaraya hadaladiisi baa laga soo dhex saaraya isaga iyo mujtamacii baa lagu kala dhex jiraa daa'iman marka qof wacyigelinaysa ama aad qof wuxuu sheegaysa macnaheedu waa inaad qofkan ka fahan dheertay ama ka aragti dheertay ama aad ka fiiro dheertay adiga iyo qofka aad ka fiiro dheertay marka laydin kala dhex galo daad maalkaas lagu xidhay isna kaas waan arkay wadaad baa wax kufsaday wadaad baa halkan sidii wadaad baa aynkan wax meelaha yaacay khalad wadaad ka dhaca culimada dhan lagu wada taagay maxaa sababay wadaadka wala isaga guljilicda baneeyay isaga guljilicda baneeyay isagu markuu guljilicdiisa qarsadana cidina ma duraysa hilibkooda waa sumaysmaya qodobka xiga bisay la'aanta barnaamijkan guud waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan war culimadeena maanta joogtay waaqi aanan wax cusub silba maaha anigu waxaan taagnay xataa inay isu bislaadaan diyaar uma aha culimadeena xataa inay u bislaadaan هذا إنكوا حسورها هذا الكيري مكان كانوا كشيء معناها في ربنا بلا إنه وين كود هذا إنه هذول ملاها قريب من برا ولا هذول هذول لنيرة سنين لنيرة أين كني لنيرة وحوالي سن بس اللي أنتوا أو إحنا كهذا إنه إذا أنت سوى لك كل عافية قد بك موسيقى هذول يمادوا وأنا شيء واحد ورانا ونين موسيقى وحراني وحلالي بدها كهذا الكلام لكن الحقيقة ما نقول أما الديدة أما الدوانا مالك استأدون كل تشوجو تاريخ ظهر يتم ما بموسيقى وقيب نرش أمضى كمل يوحى لا تمنعي وقيب نرش أمضى قلت تاهل القيادة تكون حكتا علماء الإسلام كوي تشران علماء كدودا وحلالو سببية أو دليل كو كينيا وهي تشران علماء كدودا قار حامن تلميذنا ويتشران وأنا مسألة فقهية لكن هذه النقطة موسيقى وحن وكان سنة يا حران كديجيا تان وخرط بنوارك عاود أنت لكن قاضان أنت لكن تبغى جيتار كي رايحما عن قاضين ترى عادين نبي رفيق سنة قتلهم يسنة قلنا كسلي رسولك فسق ميو كان سنة الله فحان الروحي الله فحان الروحي فكت سرير اللي جيام بكيس فليو حفظت سنة مجا كوبين فلين نبي لو واحد فلي سبب رب با فيرين هاي ميو حماتية فسقية كان سنة سا ور الشيء كان سيد اللو أديك سيد هدو حماضو ها لكن أسل كيس هل كان مركو تاجين يهي أيوة أم حرام نقول يا أم حرام كتار قال كا يلا إنه حرام أم حلال با واتو علماء دسكو هيسو وهي كده لنا يوم مشوا ده مثلا أنا وكهذا كرنا معها مثلا أنا كرا وعين كان معها لكن أنا واحد شيء يوم كل يوم واحد نورك واحد شيء طبيعي إنه رشوا مدة كم ده تنبيه بدنه طبيعي نقضينا إيشران تنبيه بدنه طبيعي نقضي مركا أرمى يرر مركا لقوا مشغولة ما أرمى سكسوكه أرمى هو وين أي إما كنا نقول قبيلة دينا سماع دينا سماعنا هاي قبيلين نسولنا ونقول قبيلة دينا حيران تاي هدنا وحنا أمسني موسيقى قبيلة كسي وحنا موسيقى إيرها كبحي أو واحد هذا كون يوروب سمرك يستقبل ما يتحيدين واحد هذا قفك سومالي جا ممثل كي مركو يوروب تقول يلب دوفار كنا وحرام بلا وإحنا خمر كنا وعبا حتى يدو حرام هي وحرام نرش برشدي مجتمع إلا فرق الشيء مركان وحمد هاجنا وروح نيان لقوم مشغول يدوس لعتين يو أنا لقيت جينا مثل الرسمي هاي وحكي واوي أيجر موسيقى مركان وح أنكو درسنا يو كله ما شرتو خذ بكحيجة إنه هذين هاي السومالي علماء أكثر من مقام بكلين ولين ويكلين حتى هي ساعة تبقون نقطة وندوي دفتر علماء وناكسن هسينا كم يدهاي كرامة لها لقمة بهذا الشرون وذات هذا الكيس هذا لما سارج هذا الكيس هذا لما سارج قضب كأخ علماء إني بنيان مال هذا الكود هذا اللي قصاره أو إن احترام كود ولما يجوا يسببوا هنا ولي ما نقعد كيسنا يا مركان كي وذات بلو وذات بلو بين واس أساس سوريا وذات بلو بين واس تبين واسيا أنا قاعد كذا كانوا غير لبدي مهم ما هو حي مركا كليه يوحي مسين كود صحيح كود خردني أنا وإحنا مسين يجي احترام كود اللي هذه وراء سنة ومشي هذا حديث كان يستوي اعتدلوا تقاربوا وتعادلوا حاضوا بين المناكب والأقدام هنو ما انتي لكن حديث كان له شيء أو ما كان حديث كان له شيء يعني تشينيو وارجرباه يقوم هذا السار ميان كورنا أنا وحلاي حديث اللي قلت قبل هي تذكر واحد فاهميان هلا الشاب تذكر واحد فاهميان وتعبد واحد قبل هذا سمك يعيش في البحر السمك يعيش في البحر هو شيء الوقت يفهميان إما كان يقولك الصومالي يقولها الله يقولك عربي ده إيش بربرية رياء عربي يقدر دويك القيمة دوين ولا له أنا وحنا وردك أفكود هلا مش وحي له الشيء جاي إنه كذا أصل كهك تجين كانت تسنك بحياة قدر كحياة ورتشيلك إنه قدم بيا سيدبين القرآن كي معني يسوع أن أبرنا قدر كمان دهنا إن كهالله هل كنا هرم من العاملة هي مدارس تدور بالله جالي لكن هداد كشيء دور قدر بنكشيء جاي من العامد أنا وسان ما نتكلم سينما العمد السومالي ده ما أنت السنة وماش المها أنشحيات كيسة هي أخلاقيات كيسة هي تعال كودين توهاي يكون أنت أين أنا بقى بالسنة كأذن هانتي وحنوها من سنة هاي أرضي وحلا برايا وحلا الدنيا إلا تشعري سيو إلهي بالبرايا دينتي بالبرايا ولا جو قراعية أنا ما أنت من العمد اللي ينشري اللي قراع يشري أنت من العمد اللي يقصوا قراعه كده ربنا حلال عن أنا أوي يقول جيم ينشر مثلا ميال يقصوا لها بقى كل واحد بيسيب اللي وجود لي
maalintii malcamada la geliya waxa lagu wadaada jirkana adigaa leh lafaha iyo ruuxdana anigaa leh tiifiye ciyaal gaal ah iyo la marxabaysiinayo la ciyaarsiinayo oo maan arki jirin waan ku qanacsana maanta laakiin ka iga aniga 9 jirka ama 8 jirka guriga jooga saa marka malcamada ugu yimaado mobilkayga inuu qaadanayo kuna carruur gaalo saa loo baashirayo daawanaya waaqi uu isbedel dilmada waaqicdi marka waa inuu isbedel waa in la jeclaysiiyo ilmihii waxbarashadii taa way ku khaldan yihiin mas'ala labaad ardaygan markaan kuleeyahay diintu waa meeshii ka dunto ardaygeenu maalintu sidaa malcamada uga baxo ee inanku uu sidaa leeyahay maanta malcamad iyo qur-aankii dhamays waa maalintu bilaabay inuu farta koosto waa maalintu bilaabay inuu surwaalka furtada qaawiyo waa maalintu bilaabay inuu meelaha dadka mobilada kala cararo waa maalintu akhlaaq xumo dhan bilaabo sida ugu badan akhlaaq xumo maxaa sababay ardayga soo degajisa qur-aanka ha qaybsan inuu halka akhlaaq xumo ka bilaabay ardaygan akhlaaq lama barine qur-aanka alfaadisi carabiga ahayd baa la baray cidda aan ku haysto ardaygana inaynu ku dhisno diintii oo aynu macnaheedii soo barnaanay waa isla sheekhaygana aan leeyahay war sheekh waxaan waan salugsanahay in yar baan saluuga ka sheegay waa soo koobaya Mustafa in yar baan saluuga ka sheegay tan ku salugsanahay waa tan sheekh ilmihii Allah alfaad quraan oo qalalan sita ama alfaad axaadiis oo qalalan ama alfaad carabi oo qalalan erey sita ayaad ku soo deynaysaa caalamkii ilmihii macrista laakiin soo deynmaysa niran saaxiibanayo macaamad gacan yara ka ayaan maalin arrimaha kala hadlo waxaan ku walaal bartijaab inaad carruurta nafsiyan u dhisto maalin baan ku eegi buuri subax waxaan ka dareemay ciyaalkii nafkoodu yara ururayo dadna sheekir baan uga sheekay malawan waxaan niir baa jiro maxamed looran jiray dadku dhamay aad u jeclaayeen wuxuu sameyn jiray mataqaanaan hee marul buu cadeyn jiray wuxuu ku leeyahay subaxii wax yimaadeen mid walba isagoo cadayga ku faanayo bahal intaa leeg halka ka laalaabo dawlad macallinka inuu doonayo inuu qof soo saaro waa macallinka laakiin macallin war xataa carruurta wax lagu jirayo 90% waa dulmi ilmaha yar anigu aan ku barin maanta qofku wuxuu jaahilkii ilaahay uma qabto soo maaha anigu aan ku barin maanta hooyada waxa ku sameeya waa wax markaad suuqa ka soo maqashay waaqicana waan kor hanay ku badal ciyaarayo ee malcamada aynu joogna aan ku raado hooyada wax ku sameeya macallinka ay sheegtay macallinka gidaar madaxa ila dhacay dulmi xaq daru igu dilayaad aan ma fahanti anigu waxaan leeyahay hal bedelo oo macallinkayga aanu isla fahano waa qodobka kan ku naqdiyayna waa kan leeyahay wasalugsanayna waa kan leeyahay waaqaca uma bisrid macallinkayga oo lama jaan qaadi karaysidna waa ka way qodobka aadanow dood adagna halkan way ka dhacday oo geesaha la istaray walaalkii hal qodob marka weydiinta kale inoo gudub muhiim ahaa yaa soo fadhiisanaya oo barnaamijkan qabanaya iswaafajinaya culimadii iyo dhalintii sheekh dawladna iswaafajin mayso maanta caawa halkaa ma fadhina haddii maanta culimadeena waaweyn hargeysa mid kamid yidhahdo waa sheekh hebel masaajidkaasu maanta barnaamij ku qabanaya dhalinyarada quraa loo yeedhaya wixii tabashooyina ay qabaanba halkaa iyo turxaansaar baa ka dhacaya oo sheekh maxaadiro noocaasa inoo qabto inta laynoo matagayna mise tegi mayno ma tegaynaa horta haddii uu fursad laynoo siiyaynu wax ku weydiino ma weydiinayna inagu ma baahan maaha laba dawladood Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya meesha dooni mayno ama Turkiga ama Ingiriis u dhaxeeyo macallinkayga baan leeyahay macallino macallinkayga waxa soo baray heerkii soo gaarsiiyo waxa hooyooyinka wax leeyahay mahmaa yaro mahmaa dumar leeyahay dhalankii hooyadii dhalmada baray maanta anigu ma doonay macallinkayga ku macallin waxana sax sameeyay waxana khalad sameeyay wax leeyahay macallin bal hal sidana wuxuu wada waxaan arkay sidana inay keenay waa boontahay sidana ay khaldan tahay ka war anigu wala inta doonaya waa inta kan doonaya inuu qabtaana waa isaga aniga ma way weydiinta kale ku soo dhaw weydiin baa harsay وهرر waxaan filayaa deenan wixii aan ku galgalan karay ku galgashay way aad iyo aad baad u mahadsan tahay aadan idinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kulankan qiimaha badan ee aad nagala qayb qaadatayna aad baad kaga mahad celinaynaa waqtiga quruxda badan ee aad noo soo hurtay tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij kale oo kan ka qurux badan oo aynu qaban doono oo aynu ku falaaqayn doono wax isku weydiin doono maadaama maanta wacyigeennii uu koray uu kobcay inaynu wax isweydiino inaynu wax iska maxay heday baandhayno aad iyo aad bay muhiim u tahay adigana waanu kaaga mahadnaqaynaa waqtigaad noo soo hurtay salaamullaahi calaykum waraxmatu dadkuna aad iyo aad maynta istuudiyaha nagula sugani ay u mahadsan yihiin intana daawanaysana waxaan leenahay daawasho wacan oo wanaagsan salaamu calaykum